Guud ahaan dalka Norway, kaamirooyinka qabta xawaaraha ay gaadiidka ku socdaan misna sawiro oo caddeeya ayaa lagu soo waramayaa in 6dii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2025 ay qabteen in ka badan 34,719 darawal oo gaadiid wadayay, kuwa oo si xawaare ah ku dhaafay goobo ay kaamirooyinka qarsoon ee xawaaraha gaadiidka la socdo, kuwa oo ku dhagan goobo cayiman oo loogu talagalay in ay ku koontaroolaan gaadiidka sida xad-dhaafka ah u socdo. Darawaladan gaaraya 34,719 darawal ee la ganaaxay ayaa celcelis ahaan waxaa lagu wada ganaaxay lagana soo xareeyay adduun lacageed oo gaaraya 146 milyan oo karoonka Norwejiga ah. Tirakoobyadan cusub ee kasoo baxaya xarunta ilaalinta wadooyinka dalka Norway ee qaybta booliska ee TK ayaa muujinaya in ka badan 156 milyan oo baabuur oo lagu eegay kaamirooyinka xawaaraha xakameeya ee ku xiran goobaha qaar. Waxa ayna 6dii bilood ee ugu horreysay sanadkan qeexeen in la qabtay 34,719 gaari, kuwa oo ku socday xawaare ka baxsan intii loogu talagalay. Tirooyinkan ayaa weli sii kordhaya, waxa ayna hay-adda wadooyinka dalka Norway xaqiijinaysaa in ay weli gacmaha ku hayaan kiisas gaaraya 9,200 oo xaaladood. Si taa la midana, ganaaxyada ka sokow waxa uu boolisku diiwaan geliyay 1,360 warbixinood. Waxa ayna sidoo kale warbixintani muujinaysaa in 243 darawal ay lumiyeen laysanka lagu wada gaadiidka kadib markii lagu qabtay faldambiyeedyo ah in ay ku socdeen xawaare ka baxsan intii loogu talagalay. Tirada darawalada la ganaaxay 6dii bilood ee ugu horreysay sanadkan iyo lacagaha ka soo xarooday ayaa muujinaya in ay ka yar tahay sanadkii hore marka loo eego 6dii bilood ee ugu horreysay 2024 ka oo dowladda celcelis ahaan uga soo xarootay in ka badan 175 milyan, halka sanadkan 6dii bilood ee ugu horreysay ay ka soo xarootay 146 milyan. Inger Torell Mehli, oo ah maamulaha qaybta xarunta TK oo ah midda la socota kaamirooyinka loogu talagalay in lagula socdo xawaaraha gaadiidka kuna mutaystaan ganaaxa, ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid wanaagsan. Waxa uuna sheegay in ay sii kordhayaan tirada gaadiidka ay kaamirooyinkan xawaaraha in ay eegaan loogu talagalay ay qabanayaan, si taa la midana ay koontaroolayaan. Waxa uuna intaa ku daray in ay sidoo kale arrin wanaagsan tahay in ay sii yaraanayaan darawalada ku mutaysta ganaaxa. Kaamirooyinka xawaaraha ayaa si istiraatiiji ah loogu dhajiyay goobo cayiman, kuwa oo la sheegay in ay u nugul yihiin shilalka, sidoo kalena ay suurtagal tahay in xawaaraha sare ee ay gaadiidku ku socdaan ay sababaan shilal aad u daran, kuwa oo waxyeello u geysan kara darawalka iyo dadka goobta ka dhow. Waxa ayna hay-adda TK ay muujinaysaa in 30% ilaa 50% dhimashada iyo dhaawacyada iyo shilalka ka dhaca wadooyinka ay qiyaas ahaan ka dhacaan goobahan ay kaamirooyinka ku xiran yihiin. Taa oo uu sheegay in ay ugu talagaleen in ay ka taxadiraan nafta darawalada iyo sidoo kale dadka goobta ka dhow iyo shilalka sidii ay ku yareyn lahaayeen. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.